lacagtu waxay la mid tahay dahabka iyo fidada ayay la mid tahay marka dahabka iyo fidadu waxay ku zaka goynayeen ayay ku zaka goynayeen labada keebaa lagu qiimaynayaa marka laga hadlayo xagga masaakiinta iyo waxa u dana fidadii ama silfarkii ama qalinkiiba aad u jaban lacag aan badnayn baa xooluhu zaka goys ku noqonaya laakiin waxa culays ka imanaya inta badan qiimaheeda in la ogaado oo waxa inta badan la isticmaalo la kala iibsada ma walibana mujtamaceena dahabun baynu haynaa marka dahabka waxa weeye lagu qiimeynaya kaashka aad hayso akoonka kuugu jira ama jeebka ku sidato مثلا waa $3,000 saka goys ma yahay mise ma waxa tagaysaa suuqa dahabka tagaysaa waxaad leedahay garaamka dahabka ay waa imisa waxa lagu yiri waa $50 garaamka dahabka ay waa $50 85 gram oo dahaba ayaa dahabku uu ku noqdaa zaka goys lacagtaada haysay 85 gram oo dahaba oo garaamkiiba uu yahay $50 lacagtaadu ma gaadho markaynu 85 konton ku dhufano imisa noqonaysa $4,250 hadaad haysato kaasha waxa kugu waajibaysa zakadii oo 2.5 boqolkiiba 2 haddii sanadka islaamiga aad ku xisaabinayso haddii kan kale ee miilaadiga aad ku xisaabinaysana oo de sanadka aad ku xisaabtantana waxa weeye 2.5.77 ayaa waxa weeye 0.7 baa lagu sii darayaa ayaa waxa weeye kugu waajibaysa marka hadba waxay la badanaysaa qiimaha dahabku yahay marka saasa loo bixinaya insha Allah ta'ala